kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada maxay tahay saraakiisha sarsare ee ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee hogaaminaysa dagaalka ka dhanka ah saaka aroorimadii hore ee ku bilowday aw markaasi weerarka culus loo qaaday xarun ay markaasi kooxda aas ay dhalinyaro markaasi tababar ugu waday jug intees la gaarsiiyay maxaase ka soo kordhay daraawish koonfur galbeed door intees ay ka qaateen sidoo kale bulshada deegaanka qaydar cadde maxay saaka kuwa baristeen maxayse ku harsanayeen maanta xogtaasi iyo waliba macluumaad kale oo dheeriya ayaa halkan kugula wadaagi doona guulaha waaweyn ee saaka ay gaareen saraakiisha ciidamada ee dawladda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waliba sidoo kale saraakiisha dawladda ee qayb ay ka yihiin sidoo kale waxa macluumaad kale oo dheeri aan helino xogo kale ah in markaasi deegaano kale oo hor leh wali markaasi ay ka socdaan howlgallada ka dhanka kooxdaasi waliba sidoo kale bulshada oo si weyn markaasi u soo dhaweeyay deegaan qaydar cadde oo muddooyinkii ugu dambeeyay aagageeda markaasi looga cabsi qabay kooxda aas macluumaadkaasi oo dhameeyay halka kugula wadaagi doona markaas muuqaalka hadii uu ku soo gaaro la gare oo share gare si meel dheer u gaaro mahadsanidin soo dhawaada howlgal saaka aroornimadii hore markaasi ciidanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si weyn markaasi u bartilmaameedsaday ama markaasi ugu xog helay halka ay sida weyn markaasi ugu dhuumalaysaneen kooxda aas deegaan qaydar cadde aroornimadii hore weerar markaasi dagaal ku bilowday ayaan halkaasi ka qarxay kadib markii ciidanku ay ka war heleen in meel u dhow deegaanka qaydar cadde si weyn isugu abaabulayeen saraakiil markaasi ay ku sheegeen kooxda aas halkaasina tababar ugu socotay walibana markaasi laga hortagay caqabada iyo dhibaatooyinkii halkaasi ay ku mareegeen sidoo kale bulshada deegaanka qaydar cadde ayaana si weyn u soo dhaweeyay guusha weyn ee saaka ay ka gaareen ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dagaalka dhanka kooxda aas iyo waliba soo kale guulaha ugu waaweyn ee maanta ay ka gaareen qasaaro badan ayaa jira dhimasho weyn waa ay jirtaa jab weyn waa la gaarsiiyay saaka aroornimadii hore ilaa min waqtigan aan la hadlayno oo si weyn markaasi loogu daba jiro kooxda aas ee halkaasi ku dhuumalaysanaysa iyo waliba sidoo kale waxa halkaasi ka soo baxaya ama ay sheegayaan in laga war helay kadibna markaasi ciidanka saraakiisha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya door wanaagsan ay ka qaateen ama ay ka hortageen dhibaatadii markaasi halkaasi ay ku maleegeen waxaana sidoo kale jira warar kale oo hor leh oo markaasi ka soo baxaya weerarka saaka aroornimadii hore loo qaaday xarunta markaasi saldhig u ahayd kooxda aas oo halkaasina isku abaabuleysay ama qorshaheedu ahaa in ay markaasi ka dagaalamaan ama bulshadu ay ka dhibaateeyaan iyadoona markaasi laga war helay in markaasi dhalinyaro la marin habaabay halkaasi tababar loogu soo xirayay kadibna ciidanka saraakiisha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kolkii ay ka war heleen durbadiiba markaasi ay faraha u saareen min waqtigan la hadlayno deegaanada qaydar cadde oo markaasi hoos tagta degmada xudur ee gobolka Bakool ayuuna howlgalkan ka dhacay saaka waxaana sidoo kale jira dhimasho aad u fara badan geesiyaasha ciidanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaana qayb weyn ka qaatay saaka si iyagoona markaasi ka hortagay qatarta iyo waliba sidoo kale dhibaatadii weyn ee bulshada halkaasi ku dhaqaneyd markaasi la doonayay in lagu dhibaateeyo door weyn ka qaatay bulshada halkaasi ayaana si weyn u soo dhaweynaysa iyagoona markaasi sheegay in waqtigan la joogay diyaar u inay garab istaagaan ciidanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya daraawishta ama saraakiisha sarsare ee saaka hogaaminaysa ciidanka halkaasi howlgalka qorsheysan ka fuliyay bulshada iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka qaydar cadde oo markaasi deegaan hoos taga degmada xudur ee gobolka Bakool ayaana markaasi aroornimadii hore saaka kuwa bareystay dagaal markaasi ee ku bilowday weerar iyo waliba sidoo kale qaraxyo oo halkaasi kooxda aas ay ka maleegaysay kadib markii ay ka war heleen ciidamada daraawishta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya door wanaagsan saaka aroornimadii hore ee ka qaatay wali war rasmi kama uusan soo bixin dhinaca kale iyo waliba sidoo kale qasaaraha intuu kale uu leeyahay laakiin se waxa jira in markaasi deegaanada ay joogeen ama meelaha saldhig u ahaa gabi ahaanba markaasi ay la wadeegan saraakiisha ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya halkaasi oo markaasi lagu arkayo saakadan ilaa min waqtigan ay joogaan ciidamada daraawishta ama saraakiisha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya hogaaminayay